waxaan horay u ballan qaaday inaan kasoo hadli doono waxbarashada insha Allah, laakiinse maanta waxaan ka hadlayaa biidnillah introduction iyo mindsetka qofka bini aadamka sida uu u fakarayo muslimka maskaxdiisa iyo fikradaha looga baahan yahay inaan qaadano iyo waxyaabaha looga baahan yahay inaan iska qubno. waxaa jira maaragtay ilaahay agtiisa waxaa ah qofka wuxuu ka fisho. ilaahay agtiisa waxaa ah qofka muslimka wuxuu ka fisho. ilaahay dad khayr ka filatid khayr ayaad helaysaa. ilaahay haddii aad ka maleysatid maaragtay shar aad maleysatid ama aad niyeysatid inay shar kusoo gaarayso ama cudur ama wax xun ama dhibaato tabti baad u helaysaa ay ayada ahayd. marka wax kasta waa mindsetka qofka muslimka ana waxaa laga rabaa in uu mindsetkiisa bedelo intuusan wax kaleeto bedelin. mindsetkiisa inuu bedelo, inaad ilaahay khayr ka filatid, inaad ilaahay ka filatid inay maalmo qurux badan uu ku siin doono, inaad ilaahay ka filatid inuu guurka ku hagaagi doono haddii dhibaato ku haysato, inaad ilaahay ka filatid inay ilmuhu ku hagaagi doonaan, inay caafimaad kugu korayaan, inay wax ku baranayaan, inay horumar weyn ay gaari doonaan, horumar aad u baaxad weyn inay gaari doonaan carruurtaadu. inaad ilaahay ka filatid in nolosha maanta aad ku nooshahay nolol ka wanaagsan, inaad ilaahay ka filatid inkastoo cibaado badan aadan sameynayn in jannatul firdaws al-a'la nabiga miclis aad noqonaysid. inaad ilaahay ka filatid nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilaahay markaad baryeysaan jannatul firdaws al-a'la ka barya, jannada jannooyinka ugu sareysa ka barya haddaad ilaahay janno ka baryeysaan. marka mindsetkaas waxay ku tusinaysaa inaad han weyn yeelatid, han weyn inaad yeelatid, in aad ku hamidid inaad waxyaabo aad u waaweyn inaad xaqiijin kadid. dad waxaa jiray anagoo kaleeto ah sanado yar noolaa 40 sano ku dhintay 50 sano ku dhintay oo haddana aathaarkii iyo raadkii adduunka ay ooga tageen uu aad u weynaa. marka waa mindsetka, waa inaad aamintaa inaad wax qabsan kadid, waa inaad aamintaa inaad wax qabsan kadid, waa inaad aamintaa in aad horumar gaari kadid, inaad shaqaysan kadid, inaad guryo dhisan kadid, inaad maal yeelan kadid. ya المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لبض مؤمن با ومؤمن إنه وخير، لبض مؤمن لماذا وخير بلا، لكن سوحا إلهي وكجعليها أو إلهي أكتسن خير بدن كان قوي جاء قفك قوي جاء قف الاجتماعهن قفك قوي جاء وقف بارك إسكجف مركو كفبا بارك إسكجف يا هراء الصعد له إن ضدك وحى كشك شيء جيان يركأ aan dhag jalq u siinayn wax baranaya bini aadamka maanta iyo bariba hadii ay wax ka sheegaan hadaladooda meel kaama galiyaan. marka waa inaad markasta badantaada aad ka raacataa. hadeertan kaba soo qaad gabar hooyo ayaa tahay waarid ah ilmaha ku jooga still waxaad rabtaa inaad wax baratid oo wax barashada aad ku laabatid oo heer fiican aad ka gaadhid. marka dadka kale waxa ay ku dhahayaan hadaladooda dhag jalq ha u siinayn. adigu waa inaad diirada saarataa meesha aad u socotid oo aad ku dadaashaa. xasuusno mu'minka qawiga ah khayru wa ahabbu ila Allah, ilaahay agtiisana uu ka khayr badan yahay kan kaleeto mu'minka kale waana la jecel yahay. marka waa inaan ku haminaa hamigeen uu noqdo inaan noqono dad ilaahay uu jecel yahay, cibaadada si qawi u qabta, wax bixinta ku dadaala, wax kasto ay sameynayaan bade awood dad u saaxiib ah, qawi qof aan fiirinayn bini aadamka asoo kaleeto waxa ay dhahayaan, qof dantiisa ka raacanaya, qof aan ka faanayn luqadiisii hooyadiisii aabihiis ay kusoo ababiyeen, qof aan u arkin daciifnimo luqadiisa inuu ku hadlo, qof aan u arkin inuu dadkiisa ku dhex jiro uu sheegto inuu Soomaali yahay aan daciifnimo u arag. inkastoo dhibaatooyin badan ay nasoo gaareen, abaare ay dadka nagaleynayaan, dhibaatooyin aan qurba joogno, dhibaatooyin aad u fara badan ay jiraan, dawladdanada ay daciif tahay, maanta lagu xadgudbaya dhinac kastaba wadanka. laakiin sidaas ay tahay still waa inaad ahaataa qof qawi ah. waa laga baxayaa ayaamuhu way isbedelaan. maanta waad sarreysaa, bari waad hooseynaysaa, haddana bari kor baad usoo kacaysaa, maalinta ku xigtana kor ayaad sii aadaysaa. qawi waa inaad ahaataa qof rajadiisu markastaba ay wanaagsan tahay, rajo wanaagsan, ilaahay agtiisana wax wanaagsan ka rajaynaya. salaada ka tagay kaba soo qaad inaad waxaartaa noloshaada wax ka bedeshid, inaad ramadaanka isku diyaarisid rabtaa, inaad waxa rabtaa aad baal cusub aad furatid ayaad rabtaa. qofku inta uu nool yahay chance uu haystaa
inta aad nooshahay fursado aad u badan ayaad haysataa wixii kaa shalayta kaa soo dhacay ha fiirin qawi noqo qofuu ilaahay jecel yahay ilaahay agtiisa bini aadamku wax ma cafiyaan bini aadamku aad bay u sheegasha badan yihiin qofkii maanta asxaan kuu sameeyo waxaa laga yaabaa berito inuu ku dhaho saansaan kuu sameeya daxtaa xir aad isku qabataan laakiin ilaahay buu ku raaxaysanayaa wuu jecel yahay adoonkiisa marka usoo laabto marka u imaatid ya marka u imaadid oo usoo laabto wuu ku farxayaa ilaahay intaasoo waxaa soo qastay salaado kasoo tagtay qaladaad badan ayaa kaa dhacay bini aadam ayaa qaladka u nahay marka ilaah wuu ku farxayaa marka usoo laabatid asagaa kugu farxaya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatillah haddaa aad tahay aabo ilmihiisii dayacay ilmihiisii xaqii ilaahay uu saaray nimadii iyo mas-uuliyadda ilaahay uu saaray aan kasoo bixin awlaadiisii dayacay biilkoodii aan ka warqabin meesha ay seexanayaan aan ka warqabin waxbarashadooda aan war u hayn laa taqnaduu min raxmatillah usoo laabo adigu xitaa ramadaan ayaa hadda soo socda marka mindsetkanaga inaan bedelno oo aanan isdhigan oo aanan dhihin shalayta waxaasoo qaladaad ha iga dhacay waxaan ayaa iga dhacay waxaas haddaan bedeli lahaa if I did that low aan saas sameyn lahaa nabiguna sal alay wasalam wuxuu yiri lowga waa camalka shaydaanka albaabka shaydaanka ayay ku furaysaa low marka low waxaan u sameyn lahaa haddaan saas ka bedeli lahaa xiriirkii qofkaas igala dhexeeya wax weyn ayaa iska bedeli lahaa waxaaba laga yaabaa kala tag aad kala tagteen inuu khayr ku ahaa ilaahay uu ogyahay laakiin anaga bini aadam ayaa nahay casaa an takrahu shay-an waxaa adiga aad dhibaataysanaysid khayr inay ku tahay ayaa laga yaaba oo aad karaahiyeysanaysid waxaa adigu aad ku faraxsan tahayna oo aad khayr ku aragtid inay shar ku tahay ayaa laga yaabaa markastaba mindset qawi ah yeelo mindsetkanaga aan bedelno insha allah qofku anytime wax buu baran karaa anytime 40 sano haddaa jirtid 50 sano haddaa jirtid 25 sano haddaa jirtid still hadeertaan bilow inaad xalaqaadka aad iska diyaarisid bisha ramadaanka ayaa soo socoto aad isdiyaarisid oo dhahdid wax badan ayaa salaad iga soo tagtay noomo salaad dambe igama tegayso ramadaanka waxaan rabaa inaan qof cusub noqdo inaan habeenkaas laylatul qadri khayrun min 1000 shahr 83 sano iyo bilo ayuu ka khayr badan yahay habeenkaas aan isku diyaarinayaa ya wixii salaad iga soo tagay wixii aan maaragtay qaladaad iga dhacay ilaahay uu iga cafinayaa waan soo laabanayaa bishaan hadda soo socoto ramadaankana waxaan noqonayaa qofkii hore qof ka dugan qof qawi ah qof hor u socod leh qof wax qabsi leh qof maaragtay sameynayo waxyaabo la taaban karo tangible result la imaanaya ayaan rabaa inaan noqdo marka in terms of education insha allah waan kasoo hadli doonaa waxbarashada hooyada anytime inay gabadh wax baran karto inay hooyadu tahay madrasadii awlaada soo saareysay inaysan qofku uusan isdhigan inuusan is oran science ayaa lagu oranayaa dadka ayaa saan idhahaya dadkuna way iska warbadan yihiin haddii aad guriga joogtid oo aadan waxba baran cilmi naafica cilmi wanaagsan cilmiyaduna waa kala dugan yihiin cilmi naafica ayaa jira cilmi dhibaato keenaya ayaa jira oo bini aadamka dhibaato ku haya iyo cilmi aan dhibaatana lahayn faa'iidana aan lahayn cilmiyadu way badan yihiin marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray markasta subax kaste nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray inuu ilaahay siiyo cilmi naafica cilmi faa'iido leh inuu ilaahay siiyo اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 3 مرات صبحي عصر كنا sidoo kale tuu ku duceysan jiray nabiga marka meeshaas waxay ku tusinaysaa ahmiyada cilmiga iyo cilmiga faa'iidada uu leeyahay ayaa meeshaas ku tusinaysaa waxa kale oo markasta cilmiga laga hadlaayaba arkaysa ilaahay quraanka xitaa uu ooga hadlayo yarfa Allahu alladina aamanu minkum walladina uutul ilma darajaat dadka cilmiga uu ilaahay siiyay way ka sareeyaan maartay isku darajo xitaa maahan dadku ilaahay cilmiga siiyay dad kale dadku ilaahay cilmi uu siiyay iyo dadka aan cilmiga lahayn isku darajo xitaa maahan qofkii maanta aad ku tirahdid jaahil yahow wuu xanaaqayaa xitaa inuu kawkaaga siyaabo dhici ka dhaba sababtoo ah kelmadda jaahil dadku waxay u arkayaan way og yihiin qofka hada aan waxba baran xitaa wuu og yahay qofka jaahil hadii la dhaho in loo gafay inay ceeb tahay jaahilnimadu wuu og yahay marka aan raadina insha Allah cilmi naafica waxaan kusoo qatimayaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam
man yuridi allahu bihi khayr yufaqihu fi ddiin qofku ilaahay khayr la damco ilaahay qofku khayr siinayo diinta ayuu fahamsiiyaa diintu waa muhiim maalin waxaan xasuustaa maalmaha ka mid ah dhowr 10 sano ku dhawaad ayaa kasoo wareegtay ayaan u malaynayaa maalintaas gabar walaasheeha waxaan ku iri waxaana rabaa inaan barto maadaan ka hadlayay markaasaa waxay igu dhahday raxmo diinta ayaa wax kasta gabadhaasna waxay ahayd wax yar iga weynayd laakiinse maasha allah ahlu qur'aan ah oo aad u wanaagsan ay ahayd ilaa hadda waan xasuustaa kelmadaas waxay ugu dhahday raxmo diinta cilmiga diinta wax kastaba ka fiican wallahi daa xubirnaysid cilmigaas baro oo diintaada baro quraanka baro maaragtay dib ugu laabo wax ka fiican malaha waxyaabahan kale oo adduunka kaaga haraayaan markastaba ogow markaasaan waan xanaaqay maalintaas ku xanaaqay waxaan ku iri oo aniga ma diin laahna ahayso intii la isoo baray marka aan saas leeyahayna ilaahay baa igu waxaan aqaanaaba iska yar salaada xitaa saa u tukanayo xitaa ilaahay baa og marka kelmadii marka hadda markasta aan soo xasuusto wallahi waxaan ogaaday inay ahayd qof jecel qof ii nasteexaynaya ayaan ogaaday qof ii nasteexaynaya ayaan ogaaday cilmigu waa inuu horta fasti u ka bilaabanaya sida ilaahay u caabudi lahayd salaadaada sida nabigu u tukanay sallallahu alayhi wasallam salaadaha laga hormarinayo salaada aad tukanayno waajibka qabliya iyo bacdiyadii waqtiga salaada soomka sida loo imaanayo waxyaabaha soomka burinaya waxyaabaha soomka maaragtay ajarkiisa ka nusqaaminaya waxyaabaha haddii aad samaysid cibaadaadkaaga subxaanallah ilaahay aad ugu dhawaanaysid waxyaabaha ay tahay in la joogteeyo ilaahay uu jecel yahay waxyaabaha la joogteeyo markasta waxyaabaha la joogteeyo ay ka ajar badan yihiin wax aad hal mar aad samaynaysid wax yarba ha ahaato duco yar aad akhrisid ba ha noqoto adkaaru sabax oo kaliya 5 daqiiqo ka yar 5 daqiiqo maxaa 2 daqiiqo ay subax kugu qaadanaysa adkaaru sabax oo kale subax intaad fariisatin meel markaas aad tukatid oo kale kaba soo qaadataa meel kale tabha aadin aad akhrisatid adkaaru sabax ilaahay aad ka meen gashid sharta bini aadamka sharta khalaa'iqtiisa sharta maaragtay habeenka mugdigiisa sharta uu wato sharta wax kasta oo bini aadamka dhib shartiisina ilaahay ka meen gashid ilaahay xirsi ku noqonaysa adiga hadii darbi adag oo aad u adag hortaada yahay dhagax iyo wax lagu soo tuuro darbigaas ka celinayso ma soo adkaartuna way ka sii adagtaa darbigaas waxa laga yaabaa xitaa dad waxa dhageysanayay xitaa oo maaragtay shil intay galeen wallahi gaariga uu daasad noqday daasad uu jajabay ayagoo caafimaad qaba laga soo dhex saaro xitaa waxba aan gaarin wiilkaasna wuxuu yiri saas markaan salaada casarka u tukaday ayuu yiri adkaaru waxaan akhristay masaa ayaan akhristay رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 3 مرات حسبي الله لا إله إلا هو ورأدقو كل أذكار تاسو أخرستي كل بو أخرستي قارقو صوفولة وحوجري قارياشي دادك اسكور عايش الأدوين أياد عايدد أياد خطر الله لك العري حبد مقارن أساقي دادك لسارنا ويلكاس قاري أساقو عافي ما تخب قارق لك آد أوججبه عافي ما تخب عادي isla markii wuxuu yiri taxi kale taxi baan wacday wiiranka askartii wixii ii dhamaadeen oo la firfiriyay gaariga iyo sida accident u bilaabatay waxa sar arkay wali fasax taxi baan qabsaday meesha aan socday baan tagu yiri anoo tabteedii wiil marka adkaarta aad ay muhiim u tahay insha Allah aan xooga saarno adkaarta aan barano salaada si loo tukanayo cilmigu fara badan yahay laakiin si qofku ilaahay khayr la doonay cilmiga ayuu fahamsiiyaa yufiqhu fi diin cilmiga diintiisa إمام شافعي أو معرفتي مذهبك أنا وهذا أنا هاي صومالي ده أنا معرفتي مذهبك أنا رأسنا هاي عنده نحيري قفك أيوري إمام شافعي علمي جديد علمي هو نكسر وكلاته أو علمي هو نكسر أو لبرنكر علمي جديد كذب وعلمي اقترني ماذا marka imaam nabawi sidoo kale maraan akhrinay imaam nabawi maaragtay foot xadiis ayuu qoray also riyadu saalixiin kan maaragtay u qoray marka imaam nabawi wuxuu ahaa astronomer physician uu ahaa marka wuxuu dhan marka soo koobaba scientist ayuu ahaa marka dadka maaragtay muslimiinta ah waqtigii maaragtay golden age-ka oo muslimiinta maaragtay ay aad u xoog badnaayeen xisaabaha algebra waxyaabahaas ay maaragtay dhakhtarnimada wax kasta oo adduunka maaragtay adiga maaragtay ilbaxnimo ahba ee muslimiinta gacanta ku hayeen waqtigaas ay awood badnaayeen cilmiga diinta oo kalimaysa ahayn cilmiyada kale ay baranayeen xisaabaadka contribution ku sameynayeen dhakhtarnimada wax kastaba
marka cilmigu wuu faa'iido badan yahay marab inaan fiidiyoga dheereeyo ana haddaan af kala far wax badan ayaan hadlayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin intaana kusoo gabagabeynayaa waana kasoo hadli doonaa jadwalka insha allah waan ku maqanahay ilaa isbuuc la soo dhaafay sida gabadha hooyada ah oo ilmaha haysata ee wax u baran kadho ayaan qorayay book ayaan ku qorayay intaas oo bari isbuuc dhan adiga laakiin topigaas maanta maanan soo qaadan maantaytu hadafkaygu wuxuu ahaa inaan ka hadlo mindsetka qofka bini aadamka ilaahay wuxuu ka fishay inuu helayo khayr haddaa ilaahay ka filatid khayrka inaa helaysid shar yaanan malaysan yaanan isdhigan yaanan isyaraysan maskaxda bini aadamka aad ay u awood badan tahay maba isticmaalaan baa la yiri maskaxda bini aadamka maskaxdooda 1% xitaa maaragtay qayb u dhigan bas isticmaalaana la yiri bini aadamka 1% mase ninka ugu aqliga badan sida Albert Einstein oo kaleeto oo nalka iyo waxyaabaha inay ninkii maaragtay curiyay ninkaas 2% u isticmaal jiray miyaa la yiri maskaxdiisa 2% oo kaliya maskaxdiisa isticmaal jiray can you imagine 1% xitaa haddii la isticmaalo maskaxda ama 2% in meesha ay ku gaarsiinayso inaad raad adduunka uga tagaysid waqtigaas athar awlaad tayale aad korinaysid kuwa qawi ah kuwa muslimiin ah kuwa saajidiin ah kuwa shaakiriin ah kuwa ilaahay aan ku caasiyin kuwa baari u rabbigood kuwa adigana ku baari noqda waqtiga hadda lagu jiro waqti aad u adag waaye ilmaha anaga telefoon ayaa noo korinaya iPad ayaa u dhiibeynaa TV ayaa noo korinaya ayagoo yaryar ay cay baranayaan ayagoo yaryar ay cayda ugu xun baranayaan adaa sabab u ah kullukum raa'un وكلكم مسؤول عن رعيته آخرنا والويدينيا أديك برتا لو سو استاجنيا صبتا ونجان يركأ وحب مؤجا أديك إله مسؤول كاغ دقي أديك إياه مسؤول كاغ دقي إلما هدي الوسي وإله أولاد وكسي معن هاد ما وحكست إنا سمين كديد والله آخر والسويدينيا النبي صلى الله عليه وسلم إن مركو الصحابي دي سكولها أي ويدينيين وأنا وحن كنا لنا بيو يتمر لبده مدو بس هب أنا وهي سنايا النبي إلهي ومن الويدينا آخر نعم وير النبي والد ويدينا آخر لبده اسمه دوحتها ورباط المهاي وإلهي كسي وحي راي أفك أجلسي ببي تمرت حتى عديل ويدينا سؤال دبطال ماش أتك كانت لعكتها سيتو إنج أنت حتى إنج جاي حتى أنت وكب حساكو دبطال